Assalaamu calaykum. Iyadoo aan la eegin da'da, jinsiyadda, sinjiga, qof kasta wuxuu istaahilaa ama mudan yahay in la ixtiraamo. Ixtiraamku kuma helaysid hal habeen kaliya. Marka aad muujiso isku kalsooni, dhaqan wanaagsan iyo naxariis, waxaad awoodi doontaa inaad kasbato ixtiraamka dadka kale. Marka laga soo tago astaamahan, waa inaad diyaar u ahaataa mar kasta inaad ixtiraamto dadka kale. Sidoo kale waa inaad adiga naftaada ixtiraamtaa. haddii aad doonayso inay dadku ku ixtiraamaan, daawo videogan. Ixtiraam naftaada. Inaad ixtiraamto nafsadaada waa midda koowaad oo aad ku heli karto ixtiraamka dadka kale. Ixtiraamka naftaadu waa cunsur muhiim u ah noolaanshaha nolol wanaagsan oo farxad badan. Markii aad naftaada ixtiraamto, waxaa sii badanaysa inaad naftaada jeclaato. Ixtiraamka nafsadaada waxay ku keenaysaa kalsooni dheeri ah oo dadka kale kula dhaqanto. Naftaada markii aad ixtiraamto, waxaa ku xiga inaad ixtiraamto dadka kale. Ixtiraamku waa wada laba dhinac ah. Haddii aadan ixtiraam u muujin aragtida iyo ra'yiga dadka kale, ha filanin inay ixtiraamaan adiga ra'yigaaga. Ixtiraamka kaliya ma aha dhaqanka, sidoo kale waa inaad ixtiraamtaa waqtiga dadka kale. Haddii aad ilaaliso waqtiga dadka kale, iyagana waa ilaalin doonaan waqtigaaga. Tan waxaa ka mid ah in aadan ka soo daahin ballamada, inaad ka hadlin waxyaabaha macno darrada ah inta aad qofka la joogto. Noqo mid naxariis badan. Had iyo jeer u naxariiso qof kasta oo aad la kulanto inta lagu jiro maalinta, laga bilaabo qoyskaaga ilaa kuwa aad wax isla barataan, kuwa aad isla shaqaysaan, kuwa wadada isku aragtaan. Waan ogahay tan inaysan fududayn mararka qaar, qaasatan markaad xanaaqdo ama markaad caraysan tahay. Laakiin haddii aad jeceshahay in si sharaf leh lagula dhaqmo, sidaas oo kale ayaa la sameeyaa. Samee ficilada fiican mar walba, sida inaad dhoola cadayso ama salaanta qofka ka hor yimaada, ama aad caawiso qofkii aad aragto inuu wax culays ah wado. Baro sida loo dhaho maya. Ma ahan dembi inaad tiraahdo maya. Ma ahan mid qasab ah inaad ogolaato wax kasta oo qofka codsado, gaar ahaan haddii uu yahay qof martabadiisu sareyso. Mararka qaar waxaad ixtiraam badan ku helaysaa markaad tiraahdo maya. Markaad tiraahdo maya, waxaad muujinaysaa inaadan ka cabsanayn inaad muujiso in waqtigaagu qiimo leeyahay, in aanad waqti u helayn wax walba oo lagu yiraahdo. Dhagayso fikradaha dadka. Markaad u furan tahay fikradaha dadka kale, waxaad dadka ka heli doontaa ixtiraam, sababtoo ah waxaad tahay qof yaqaana sida dadka kale loo dhagaysto. Dadku waxay jeclaan doonaan inay kula shaqeeyaan ama joogaan hareerahaaga mar kasta. Inaad ogaato in aadan aqoon wax walba iyo inaad qof kasta oo aad la kulanto wax ka baran karto, waxay ka caawinaysaa inaad kor u qaaddo aqoontaada, heshana ixtiraam badan. Ha samaynin cudurdaar. Ficiladu waxay ku salaysan yihiin doorashooyinkaaga. Marka laga reebo duruufaha aan la filayn, ma jirto sabab keenaysa cudurdaar. Waa inaad lahaataa mas'uuliyadda ficiladaada. Haddii aad soo daaday, waxay u badan tahay inaad si fiican u maamuli weysay waqtigaaga. Haddii aadan dhammaynin shaqada lagaa rabay, waxay u badan tahay inaadan diiradda saarin hawsha aad gacanta ku hayso, ama aad ku jirtay qabashada howlaha aan loo baahnayn. Tawaaduc la imo. Xitaa haddii aad gaartay meel sare, dadku waxay jecel yihiin inay ag joogaan qof is-hoosaysiiya. Haddii aad haysato wax aan dadku haysan, ha ku faanin. Haddii aad aaminsan tahay inay waxaan dhammaan karaan, laakiin ixtiraamka dadka uu dhammaanayn, marka waxaa tahay qof ay dadku ixtiraami doonaan. Ma jiro qof ixtiraama qof jecel inuu ku faano waxa uu haysto ama waxa uu dadka kaga